dowladda Soomaaliya ayaa maanta la filayaa inay la wareegto cutub ka mid ah ciidamada uu tababaray Turkiga ee ku jira saldhigga military ay ku leeyihiin magaalada Muqdisho. Turkiga ayaa u tababara Soomaaliya kumanaan askar oo siiyay tababar casri ah iyadoo horay dhowr cutub tababar loogu soo gabagabeeyay xerada. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qayb galaya munaasabadda lagu wareejinayo ciidanka uu Turkigu tababaray oo ka qayb noqon doona ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. munaasabadda maanta lagu wareejinayo ciidamada loo tababaray dowladda waxaa goobjoog ka noqon doona qaar ka mid ah safiirada beesha caalamka u fadhiya Soomaaliya. Turkiga ayaa dowladda Soomaaliya ka taageera dhinacyo badan iyadoo safaaradda ugu weyn ee qaaradda Afrika uu ku leeyahay